kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhabka hadal qaybtan ama qodobkan waxaan ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay oo colaadda dalka Itoobiya ka holcaysa iyo halka uu wax marayo waxa dhinacayga bidix fadhiya guulada lifle isaga ayaa soo indheeyay xogihii iyo macluumaadkii ugu dambeeyay ee xaaladda dalkaasi Itoobiya iyo halka ay wax marayaan dhowr iyo 10 daqiiqo ee foodan ugu saacaysa bal xogihii ugu dambeeyay ee dalka Itoobiya ayaynu ku falanqeyn doonaa haduu eebaha wadada ogolada galo soo dhaw Itoobiya xaaladeeda iyo dagaaladii Sacuudi maxaa u dambeeyay aad ba mahadsan tahay ilka case daawadayaashana waan salaamayaa intaas kadib xaaladda Itoobiya wali sideedii bay u baaxadagaysaa una kacsan tahay waqooyiga dalka Itoobiya ay dagaalo adag uga jiraan maalmihii la soo dhaafay dawladda hurdada ka toostay Abiy Ahmedna waa kii furinta hore tagay isla markaasina la arkay isagoo hubaysan oo direeskiisii xidhan oo furinta hore jooga guulana sheeganayay marka dagaaladu waxaad moodaa in ay sii cuslaadeen dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay dhanka TPLF waxay leeyihiin waa riwaayad waxa la jilay ee furintii dagaalka anaga joogna wali waxaanu is aragnay oo safar saarayna malaha marka Abiy maynan arag lacag bay ku deedeeyaanba ma maqal inaad waxaan moodayay adiga laftirkaaga qayb ka raadinaysa ninkaas maxay yiraahdeen qofkii soo sheegay meesha furinta kaga jiro lacag baa naga diyaar hadana isagaaba sheegay deegaanku ku sugan yahay iyo halku furinta kaga jiray deegaamada qabsadeen iyo kuwa ku sii aadan yahayba isaga sheegay si kastaba ha ahaato dawladdu muddooyinkii dambe way huruday dagaalkuna muxuu ahaay dhankeeda difaac bay kaga jirtay guulana ma sheeganay laakiin dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay waxa uu moodaa inay wax walba isbedeleen deegaano horla ay sheegtay dawladdu inay qabsatay waxa kamid ah deegaanadaasi deegaanka lagu magacaabo Kasagati sidoo kale deegaano ku dhow bay sheegeen inay qaarkood la wareegeen waa buuro waa dhul qalafsan waxay kaloo sheegeen in deegaano muhiim ah oo kale oo dhanka canfarta ay ku sii aadan yihiin oo ay doonayaan inay qabsadaan ilaa iyo haatan wax dambe oo ka soo cusboonaaday malaha marka laga yimaado hadalka ra'iisul wasaaraha iyo meelihii ay yiraahdeen waan qabsanay iyo meelaha kale ay ku socdaan dhanka TPLF waxa la sheegay in dagaal adag ay kaga jirto Debra Burhan oo dhanka caasimada soo xigta waana meesha ay ku hor joogeen markii horeba ciidamada dawladdu oo ay ku dagaalamayeen marka labada dhinac canfarta dhankeeda ay awood saarayaan oo dhanka dawladda oo guulo ka sheeganaysa dhankan kalena dhankan Addis Ababa loo soo socday guulo ka sheeganayaan oo iyaguna ay leeyihiin horumaro yaan ka sameeynayna oo duqeymo adag ba ka socda Debra Burhan iyo hareeraheeda waxa kale oo xusid mudan in magaalada Maqale shalay duqeyn ay ka dhacday marka inaha soo dhan la isu geegeeyo dagaalku wali fari kama qodna sidiisii buu u taagan yahay ilaa iyo haatan maadaama aysan warbaahin madax bannaan meesha joogin guulaha ay kala sheeganayaan aan la xaqiijin karin يعني horumaro dhab ah oo la taaban karo magaalooyin la soo bandhigayo dhinac waliba uu soo bandhigayana aysan jirin lama xaqiijin karo sida wax u jiraan laakiin waxa la sheegayaa in dagaalku uu dardar cusub galay qolo walibana ay ugu jirto guluf ay ugu jirto iyo diyaar garow ay ugu jirto sidii ay horumaro la taaban karo muddo kooban u sameyn lahayd maadaama labada dhinac isku daaleen oo dagaalkuna uu muddo dheer socday marka dawladuna guulahaas sheeganaysa TPLF-na iyana waxay leedahay Debra Burhan baa noo hareeraysan hawshan halkeedii bay ka sii socotaa wahag gurida ma san tahay waxaan gudooyin ku dambeeyay warbaahinta caalamiga inay aad u qaada dhigayeen xaaladda dalka Itoobiya sida Al Jazeera kale waxay soo tabinaysaa weerarada dawladdu ay ku qaadayso gobolka Tigreega iyo waliba xajmiga ay leeyihiin goobaha diyaaradaha kacaya iyo diyaaradaha duqeymaha geysanaya iyo dawladaha iskale bal xogta noocaas oo kale ay tabinayaan xogaha warbaahinta iyo sidoo kale satellite-ka maxawarka hayna horta dagaalka Itoobiya inuu qowmiyadaha Itoobiya ka baxsan yahay Itoobiya gudaheeda ka baxsan yahayna qofna shaac kama saar way jiraan quwado ku dagaalamaya toos iyo si dad badanba labadaba dawladda dhexe Itoobiya ka arriminaysa inta badan TPLF waxay ku eedeysaa in heer galbeed ay dabada ka riixayaan sidoo kale heer galbeedku TPLF-na waxay eedeysaa wadamada Ruushka iyo Imaaraadka iyo Iiraan iyo Shiinaha iyo qolyaha bariga marka labada quwadood
haddii xog rasmi ah horta cadeymaheedii wadata cid soo bandhigayso oo saameynta labada dhinacba muujinaysa ma jirto sidoo kalena toos dagaalka uma haysa soo gelin ciidamadoodii iyo qalabkoodii military oo toos u howlgelaya marka laga yimaado diyaaradaha Shiinaha iyo Iran lama hayo haddana satellite-ka xogaha laga helayo ee Al Jazeera ay soo bandhigtay hadda waa kuwa xasaasiyadooda wata waa kuwa culayskooda wata waa kuwana cadeymahoodii wata waxay soo bandhigeen diyaaradaha Imaaraadka oo gaalaabaxaya airportyada gudaha Ethiopia isla markaasina geynaya saanad military oo ay sheegeen in satellite-ka ay ka sawireen waxay leeyihiin Imaaraadka ayaa la arkay isaga oo bundado waxa ku jira aan la garanaynin hawada uga daadinaya ciidamada dawladda dhexe ee dalka Ethiopia ee furinta hore ku jira wayna xaqiijinayaan TV-ga Al Jazeera warbixintiisa sida ku cad in arintan diyaaradahan ay yihiin Imaaraad ay leeyihiin Imaaraadka ay ka soo duuleen Abu Dhabi ay ka soo duuleen isla markaasina gudaha Ethiopia ay ka fulinayaan hawlgalladaasi oo ay saadkaasi u qaybinayaan ciidamada Ethiopia sidoo kale waxay leeyihiin satellite-ka noo sawiray cadeymahoodina way soo bandhigayaan oo waa wax biyo kama dhibcaan wariyuhu sida sheegayso bilihii September iyo November baaritaano aan sameeyay waxay yiraahdeen 9 duulimaad yaa ka timid Dubai oo u kacday Ethiopia qaarkood meelaha ay tageen lama cayimin isla markaasina lama garanayo oo waa la qariyay macluumaadkooda qaarkoodna waa la garanaya waxay leeyihiin laba shirkadood yaa Imaaraadka u qaabilsanay daabulida hubkan iyo saanadan military ee Ethiopia ay geynayaan laba shirkadood mid waxa laga leeyahay Spain mid kalena waxa laga leeyahay Ukraine mid waliba waxay sameeyeen guud ahaan labada bilood September iyo November ba 9 duulimaad oo gudaha Ethiopia ay ku tageen waxay shirkadan Isbaanishka ay duulimaad sameysay 54 jeer oo ay waxgeysay gudaha Ethiopia halka Ukraine shirkadan laga leeyahay ay 39 jeer iyaduna ay duulimaadka geysay waxay ka soo kaceen diyaaradaha dhamaantood 9ka duulimaadba Abu Dhabi waxayna degeen qaarkoodna waa la qariyay saan ku sheegayba airport lagu magacaabo Harar Meeda oo ku yaala duleedka magaalada Addis Ababa sawirada marka ay soo bandhigayaan airport-kan ay ku xuseen oo ka muuqan kara waxa fadhiya diyaaradaha Imaaraadku leeyahay oo markaaba hawlgalka ku jiro oo wixii dejinayo bakhaarada lagu dejinayo muuqaalka ay Al Jazeera soo deysay marka si guud kulli waana la ogyahay oo Imaaraadka iyo iskuma fiicna wadanka laga leeyahay TV-ga Al Jazeera sidoo kalena waxa laga yaabaa inay xurgufyo kale ay jiraan laakiin waxa xaqiiqo ah Ethiopia gudaheeda inay ku loolamayaan quwado shisheeye oo ka baxsan Ethiopia Imaaraadkana horay bilowgii dagaalka markii maqale la weerarayay waxa la sheegay in diyaaradahooda dagaalku ay ahaayeen kuwii ugu horeeyay gurmud u soo dira dawladda dhexe Ethiopia iyo Abiy Ahmed duqeymay geysteen diyaarado drone oo Imaaraadka laga keenay oo laga soo kireeyay baana hawlgalka bilowgiisa qayb ka ahaa markii dambe waxa la sheegay in Shiinaha laga keenay iyagana diyaarado Turkiga laga keenay Iran laga keenay waxa soo dhan waa garabkan dawladda ka soo horjeeda yaa ku eedeynay warbaahintuna aad bay u tabinaysay waxa kale oo jirta oo warbixintan hadda ay Al Jazeera soo bandhigtay ay ku sheegaysaa in diyaaradaha dagaalka ee drone-ka ee Shiinaha lagu arkay Harar Meeda isbitaalkan airport-kan Harar Meeda in lagu arkay diyaaradahaasi uu Shiinuhu leeyahay drone-ka marka tuhumadii jiray baad moodaa inay sii xoojinayaan xaaladda Ethiopia quwadaha shisheeye sida dadban ay ugu loolamayaan lama yaqaan halkay ku dambeynayso maalmihii la soo dhaafay Rashk waxaan ogeyn inay safaarado badan oo heer galbeed ay lahaayeen dadkeenu ha ka baxaan guud ahaan dalka Ethiopia Rashk oo safaaradiisa Addis Ababa ku taal isagu wuxuu yiri balaaya kama jirto magaalada waa nabad xaalku waa degan yahay wax dhib Ethiopia kama jiro muwaadiniinta nabad ku sugnaayay halkiina iska jooga marka aad moodaa kaafiga kala dheeri aad iyo waxa gurida ma maasantahay marba hadii la sheegayo diyaaradahaas dalka ka imanaya Ethiopia tagaya la toonsan yahay in ay shixnad ama qalab military iyo hub ay u sideen ciidanka Ethiopia ee dawladda federaalka ah haddana dawladdii
guulo waaweyn oo la taaban karo aysan ka soo hoyin furimaha dagaalka inkastoo laba maalmood u dambeysay oo abiyo hogaamin dagaalka ay sheegeen in guulo ay gaareen oo iyada lafskeeda aysan jirin waxa weeye warbaahin madax bannaan oo arrimahaasi caddayn karta haddana maxay muujinaysaa dawladdu inay waxaas oo dawladda ah ay ka hesho diyaarado iyo maaragtay hub haddana dagaalkii weli aysan ku guuleysan oo iyada weli dhul badan markii hore laga qabsaday maxay muujinaysaa arrintan dabcan dagaalku horta ma aha awood kaliya waxaa jirta qofka hadduu niyo hayo shacabkiisina haysto ilaahu muqor ka oo 3 xabba ku jirtana ha ku dagaalgale cid uu la dagaalamaya iyadoo badaali nimankan Tigreega waxay isku abaabuleen beesha caalamkan ay ku abaabisheen waana la sifaynaya qof kasta oo Tigreeg ah nin iyo naag ilmo yar oo qaangaarin way hubeeyeen xitaa caruur bay hubeeyeen oo ay ka go'an tahay inay dhintaan ma aha in waan noolaanaynaa oo maqalaan u soo laabanaynaa waan sii baalkeenaynaa markii ay taasi dhacday ay dagaalka ku galiyeen shacabka ay sida u galiyeen dawladda dhaxana ay wajaheen dawladdu markii hore waa tii orodkiiba maqala soo taabatay wax hor istaagay ma jir waxa marka dambe soo laba kacleeyo hor istaagay waxa weeye shacbiyada la abaabulay iyo shacabka dagaalka la soo galiyay ee la hubeeyay markii ay taasi timid quwadahan shisheeye ee dawladda iyo qoladan kala taageeraya iyagu banaanka ka jooga waxay ku taageerayaan waa tasjiilaad kale qoladan dawladda taageerada ay taageerayaan dawladahan ka dambeeyay iyaga waxaysan u midhalaynin diyaaradahan iyo qalabkan iyo hawshan militariga maalmo tababarka loo soo xidhay waxaan faraha badan aysan u midhalaynin waxa weeye dawladdu ma haysata sida dhabta ciidan ay ka go'antay inay dagaalamaan haday haysatan halkan la islama soo gaareen laakiin Tigreeg wuxuu haystaa dad ay ka go'antay inay dhintaan oo ay dagaalamaan marka si guud anu waxaan isleeyahay dagaalka natiijadiisa waxa sidan ka dhigaya inuu si dheeraadana sababaya awoodii dawladda ee la ogaa ee geeska Afrika ugu xoog banaydna ay natiijo u keenay lahayd tii kale ay ku darsatay saaxiibada beesha caalamka ay ka hesheen ay natiijo u keenay lahayd waxa weeye baasha Abiy Ahmed waxa la yidhi dhawarkan baa laga taabtay waa kula soconaa galba la yidhi xanuunana waa la sheegtay waxa la yidhi waan xanuunsanahay markii furinta la tagay marka Abiy Ahmed daacad looga ma aha amxaaradii booteynaysa in badanna tabarteeda sida noqotay Abiy Ahmed ciidankii uu isku haleynayay oo islaha way ku dagaalamayaan waxaan xasuustaa maalmihii dagaalku bilaabanay wuxuu ku hanjabay waxaan awoodaa inaan 1 milyan hal subax isugu keeno gabigoodana aan saf balaa si shanlada u dhaxmaraba shanlada timaha u dhaxmarto maar inaan deegaankooda u dhaxmaraba yaan awoodaa intaan 1 milyan oo ciidan isugu keeno marka tii 1 milyan uu isugu geeyay laakiin 1 milyan uu isugu geeyay waa 1 milyan oo garac la soo arooriyay oo shambir lagu soo wada dhalayo nimankii soo ababiyay soo arooriyay ciidanka ka dhigay buuna ku weeraraya 30 sano soo xukumay ciidanka hadda wax la abuuray ma waa kuwii ay TPLF ka tagtay waa kuwii TPLF ay dalacsiinaysay waa kuwii TPLF ay saaxiibka ahay waa kuwii saraakiisha ay isla haayeen marka natiijo kasto ay dawladdu filayso laba arimood labaduba way fashilinayaan in shacabka Tigreegu uu isu raacay oo uu ka soo wada horjeedo taageerana haysto iyo in aan daacad lagala ahayn Abiy Ahmed dagaalkan uu ku dhawaaqay uu galay aan daacad lagala ahayn oo kaliya amxaara ay ku tahay waxa ka maasay yahay gurada wadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaa qodobkan aan ku eegaynay wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda iyo dagaalada dalka Itoobiya tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo